shirkiyaga wuxuu ku saabsan yahay waad maqlayseen ninkii ahaa axmedooba oo shalay hadlay oo lahaa maxaan ku raahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulada hadda ku sugan gobolka dhamaantood laga soo qaadan lahaa waad maqlayseen waa wixii ay dadka shacabka sheegi jireen waa wixii xog ah oo soo bixi jiray oo dhab ah uu shalay afkiis ka qirtay waad maqlayseen laakiin anaga waxa iyaga wax dhib nagu haya maaha maanta waxaan ku sugannahay gobolka Godow xor ah oo 7 degmo oo xalaal ah haysta waxaan ilaahay mahadi maamulada degmooyinka maamulada maxaan ku raahdaa gobolka saraakiisha ciidanka inta badan isku xiriiriyay shacabka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland oo hadda gaar ahaan gobolka Gadow inta badan isku xiriiriyay taas ilaahay mahadi ah wax walwal iyo cabsi oo tanayada maxaan ku raahdaa maanta naga haysto inuu dadkan burbur iyo kala shaki inuu dhex galana cidlo looguma qabo waxaan u aragnaa ninkaas inuu iska hadlay waana caddahay inuu iska hadlay waxaana cad Axmedoobe markuu hadda tagay xamar oo heshiis u galay lahaa inuusan heshiiskaas uusan ka suurtagelaynin annaga way noo caddeed heshiiskaas inuusan ka suurtagelaynin way noo caddeed waa aragteen ninkaas inta midab uu leeyahay waa aragteen inta jeer oo hadda Facebook la soo dhigaa asagoo xirran ah la soo dhigaa asagoo waxaa la soo dhigaa madaweyse marsaday oo maxaan ku raahdaa dhalinyaro u eg haddii intaas soo jinsiyu leeyahay ballanta lala soo galeen hadda wuu ka baxay oo dowladda Soomaaliya iyo dowladeeda dhammaan uu la soo galeen wuu ka baxay waxaa kaloo arkaysaan oo hadda shalay aad u farxuma oo shalay uu ku tilmaamay raggii meeshii fadhiyay oo waa heer gobol iyo heer degmo uu lahaa oo meeshii fadhiyay oo asagu ku adeegan jiray oo danta bulshada iyo danta reer Jubbaland intaba midna aanan ka shaqaynaynin oo asagu adeegi jiray wuxuu ku tilmaamay shalay waad arkayseen madaxweyne hore oo dhintay oo waqtigiisana u dhacay haddana dhintay oo god ku jiro iyo ku soo tilmaamay ragga ayaga waxay la mid tahay marka raggaas waa dhinteen amal inay tahay la mid tahay oo ku cadeynay waxa kale oo cadeystay waxa uu tilmaamay waxa kale oo cadeystay inuu dadka halaagi jiray oo dadka u laan jirin oo cadeystay shalay wad maqlayseen Israa'iil iyo dadku wuxuu ku kala tilmaamay wad arkayseen waxay ilaahay mahadi marka maanta anaga inaan shaki ka qabin Axmedoobe oonan islahayn meel buu idin soo gali doonaa waxa cad oo anaga aan isku hubnaa oo rabnaa inaan sameeyno hadii la raali ka noqdo oo shaki aan noogu jirin oo cid naga leexin karta aysan jirin xildhibaanaha gobolka Gadow iyo xildhibaanada kale ee Jubbada Dhaxaba waxaan u diyaarsanayn inaan isugu keeno gobolka Gadow oo ku doorano waxa kale oo wadnay xildhibaanada Jubbada Hoose hadda xiriiran ku wada hadalnay xildhibaanadii odayaasha dhaqanka oo Jubbada Dhaxada hoose degnaa waxay rabeen inay imaadaan gobolka Gadow dhammaan xildhibaanada waxa la rabay in lagu doorto meesha la yiraahdo gobolka Gadow 16 kursi oo dawladda ay ku ogeed oo la soo mariyay halkan oo inta soo martay iyo Jubbada Dhaxa oo dadkii maxaan ku raahdaa ee deegaanka u ahaa oo odayaashii dhaqanka ay ka wada hadleen maqlayseen oo la rabay hadda gobolka Gadow in la keeno oo dadkooda ay kuraas soo wareegsan rabeen hadda maanta asaas ii cadeystay inaysan adli ahayn Kismaayo ina wax la doortana uusan diyaar u ahayn asaa cadeystay dadka deegaanka waxay diyaar u yihiin in maxaan ku raahdaa doorasho xor iyo xalaal ay dhacday diyaar dadku yihiin waad arkaysay madaxweynihii Soomaaliya oo la lahaa ama dib u dhigaa oo mucaaradka oo dhan ay lahayn waqti ama ku darsadaa la lahaa wuu soo dadejiyay doorashada wuu soo dadejiyay hal maalin laguma daraayo yiri hal maalin laguma daraayo markuu yiri waxaan hubnaa Axmedoobe dad uu ku jiro inay yiraahdeen waxaan rabnaa madaxweyne 2 sano inaad ku sii darto inay yiraahdeen dib u codsadaan hubnaa waana laga diiday ayadeed maanta doorashadan dib u dhacaysa maahan madaxweynihii dalka Soomaaliya uu sareeyo talada hayaa go'aamiyay oo riday inay xildhibaanada la doorto waxaan waa marka dadka Kismaayo joogo dadka Jubbada Dhaxa joogo dadka reer Gadow xildhibaanadooda halkan isugu wada imaan doonaan Axmedoobe hadii waqtigaaba ka dhacay oo hadda nin waqti haysta muusan ahayn waxaana lagu dooran doonaa gobolka Gadow oo xor ah oo xalaal ah oo cid laga hor istaagay aysan jirin oo la rabo dadka in la isugu keeno waxaan hubaa oo ka hor istaagi doonaa oo cad dadka Axmedoobe uu dawada ka wada oo Kenyaatiga oo hadda Kismaayo joogo dadkaas ma imaan doonaan laakiin dadka Soomaaliyeed oo xalaasha ah oo reer Jubbaland ah oo inay wax si sax u dhistaan raba inaan keenaan diyaar u nahay way imaan doonaan hadii la raali ka noqdo waxaan gobol dhigaynaa xarunta gobolka Gadow Garbaarey waxaan rabnaa oo u diyaarinaynaa cid kasta oo kuraas ku leeyahay halkaas inay la imaado kuraasteeda xalaal leh xarunta gobolka oo ciidamadii dawladda Soomaaliya ay ku sugan yihiin oo amniga sugu lahaa haddana aan rabno inaan ciidamada geeyno amnigeedana aan si buuxda u sii dhigno u sameeyno halkaas la imaanaya kuraasta cid kasta oo baaq baan u direynaa hadday tahay ugaasyadoodii
hadday tahay xildhibaanadoodii hadday tahay siyaasiyiintoodii jubbada dhexe iyo jubbada hooseba waxaan rabnaa inay la imaadaan xarunta gobolka Garbaarey aad baan ugu mahadcelinayaa odayaashii qaarkood oo maxaan ku yiraahdaa suldaamadii ka soo jeeday ama jubbada hoose ama maxaan ku yiraahdaa iyo ugaasidii ka soo jeeday jubbada hoose iyo jubbada dhexeba qaarkood waxaan hubaa xal inay ku soo hoydeen xamar wayna nala xiriirayeen waxay u soo socdaan meesha xarunta gobolka Garbaarey waxay diyaar u yihiin inay ku doortaan Garbaarey maxaan ku yiraahdaa xildhibaana xalaal ah oo ayaga iskood u doortaan oo cid ku riixaysay cid ku garbinaysay midna aysan jirin in ay qabiilada ka soo qabtaan inay rabaan إن شاء الله تعالى تاسنا ربنا إن كوهبينا إحنا دول حلو وشجعنا يا مانتا واللي هاي وحنا هاي دول مدحوني دول الدولات في جبلان مجرى هرن وأوشجني هذا وشجعنا إن شعب كرر جبلاننا وحنا قلنا هاي إن الديارتيين محنكور هذا دور الشحور حلالة دتك الجنسية حدا قبل ليسكو مدري كرا ليسكو مد أحمر كرا وعدد دور الشد دياروه وعدد قبيل وكفوق يعني ما نطول وضد إنه يصلح جلان دياره عيد يصلح مري كرتمجر أحمد مدوب حلوقنا هاي دتك وكل شيء إنه صندنه هاينن دانت عساق أولي كلين وفرسدين ودياره يا عيد وقبيل كوك عن كرنا مجر عيد قبيل ما أنت خلود الرئيسنا مجر وحلا لد الرئي وشخص جيس أو كلئة وحلا لد الرئي وشعب ترهر جبلان والربا إنه قف عصب مدحوينه عصب أو شرع إنه يدورتان يدياره يهين إن شاء الله تعالى وحرمنا goobishaas waa la dhigay hadii la raal ka noqdo waxa dhigay reer gada saraakiisha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed maamulka gobolka maamulada degmooyinka dhamaantood waxaan rabnaa gobol buuxda oo waafi ah oo cid kastaba ay iska dhaxaragtay inaan halka dhigna waxaana lagu dooranayaa halkaas la markuu xildhibaanada federaalka ee dawladda Soomaaliya dooran doona madaxweynaha Soomaaliya dooran doona ayaa halkaas lagu dooranayaa xildhibaanada la dooranayo gobolka gada kaliya maahan waa jubbada dhexe jubbada hoose iyo gobolka gada ودول الجولات في جبل أنا لقصة دورنا حل بعنا داس وعلى كيس إن من درت هلا أو رجدها أو رها محن كور هذا وحن ربنا إن كراسة الجبل كجدا حق الصومري كراسة الجبل كجدا أي اللي هذا هالكان يلا كراسة كسماية أي اللي هذا ذيك الذكر بينات كيانتان مدو أحمد مدوبة وهذاك فردان وحي جدا وصافير نيسان وعن كربنا كراسة الجبل كجدا أولها واتنا نجا عنتو قاين كراسة كسماية maxaan ku raadayay dadka degan ay lahaayeen reesida ay lahaayeen hadin ka la karaba inaad keentaan hadaadan keenin in Axmedo bal raynad guriga u haaqdaan oo afar fadhidaan woona idin tilmaamay waa arkay in shalay waxay leeyahay inuu idin tilmaamay oo madaxweynihii dhintay uu idin ka soo maxaan ku raadayay idin ku soo hadal qaaday waa maqlaynay oo idin lahaa Yaasir Carafaad oo idin lahaa ragaan waxay taagan yihiin banaanka gobolkoodii ma tagi karaan inuu lahaa wad maqlayseen adeer anaga waxaan idin leenahay gobolka gada degmooyinka hadda aan joogno niman shabaab ah waxay sheegtaan inay degmada dolo amal gudoomiye ka yahay oo tuulo burwaaqo jooga dalaxa amal mid ba gudoomiye u sheeganay wuxuu joogaa Gadoondow Garbaarey amal mid ba gudoomiye u sheeganay wuxuu joogaa xeel cadda meel ilaab anaga kuwaas ay nolol mid yihiin gudoomiyaha iska sheegteen ama gobol ama degmooyin ha sheegteen shabaabkaas ay nolol mid yihiin waxayna joogaan Kismaayo waxaana ilaahay mahadi ah inaysan maanta soo gali karin gobolka gada inaysan soo gali karin hadday imaadaana lagu gacana laga xiriir lama dilaaya halkay ka imaadeen lagu celinaya qaf imaan karo isku soo haleyn karana ma jiro waxay u qeylinayaan oo leeyihiin kuraasta gobolka gada hala keenana waxay rabaan inay yiraahdaan maxaan ku raadaan inay ayaga kaliya isku soo celiyaan dadka Soomaaliyeed ay meesha maxaan ku raadaan ku ajaraan wixii ayaga waa dhamaadeen reer gada waa isku tashteen reer Jubbaland waa isku tashteen waxay diyaar u yihiin madax cusub madaxweyne Jubbaland in la doorto waxay diyaar u yihiin maamulo cusub in la doorto maxaan ku raadaan reer Jubbaland waxaan rabnaa marka waxaad maqlayseen Axmedo shir council inuu ka hadlay dadka waxa wanaagsan inay maxaan ku raadaan xasuus leeyihiin Axmedoba 9 sano xukumay asaga meesha la yiraahdo maxaan ku raadaan Jubbaland wuxuu ku xukumay 9 sano way soo baxday waxa soo baxay waqti 6 sano laga joogaa soo baxday maxaan ku raadaan councilki oo hay'adihii UN-ka fanka ay ku bixin laayeen dhaqaalihi ay ku bixin laayeen miiska ay soo saareen degmooyinka la rabay councilka in laga qabto waxa kamid ah degmada Luuq دولو باب حاوي برباري أساقا جوجي وحاج جوجي أحمد مدوبة محمود درويش أيقو اسكو دعاه درويش وحوقا عن صديق إن لقاده أو محاكور هذا كونسل كبادس أحمد مدوبة عبد الرشيد وحاج بيدي محمود وحيرا دادك عدايس دورتان ومحاكور هيدا يو أنا يلعاكو بحيان هذه الدقمة كونسل كمركو صوغلا وحاب دغالة بدنا كو بحيان ماملكو ماشي كشغينا مشاري ونقونا يعني
odayaasha dhaqanka oo doorashada galay ama councilka sameynaya waxay helayaan maxaan ku yiraahdaa fan badan ku baxay arrintaas dadka day is doortaan ayaga noqonaya maxaan ku yiraahdaa dad isku kalsoon waxay la xiriiraan waxa ka jira maamulka gobolka oo markaa u dhisan dad gaar maxaan ku yiraahdaa waxay noqonayaan isu xukuma gacanta Axmed Madoobe uu ka baxaya gacanta Maxamuud uu ka baxaya tii Cabdishiid markaa uu ka baxaya inaysan gacantooda ka bixin u joojiyeen ayagoo dhaqaalihii badnaa meesha ay UN-ki soo saareen way joojiyeen wax doorasho oo dhacaya oo council la geenay ma jirayeen darwiisha ayagoo isugu dhacay waa ognahay annaga Kismaayo tagnay xaajada meesha ku galnay waa ku kala dhintay darwiisha ayaga marqaatiyo ka yaad uu ka hadlay dhowr jeer uu ka hadlay darwiish barnaamijkaas waxa diiday waa nimankaas uu lahaa councilka asaga oo waqtiga hore ay diideen maanta leeyihiin waxaan geynaynaa gada cid la qaldayaa waa cid la qaldayaa waa madad masaakiin dad aan waxba ka warmin oo caruur ama wax loogu sheekeynaya adeer council in la keeno lama rabo hadii la rabo in la keeno waqti hore ay keeni lahaayeen ragaan waqti hore wixii joojiyo diiday ayaga ahayd waxaad maqlaysaan Axmed Madoobe inuu lahaa mashaariicda la bixiyo dhan gadaan geyn inuu lahaa wargada asaa go'doomay mashaariic umuusan ogoleen gaadiid umuusan ogoleen dhaqaale umuusan ogoleen inay dad ka soo kacaan umuusan ogoleen waxa go'doomina asagu ah waxay dadka ku kaceen oo u diideen waa mashaariicdii iyo horumarkii iyo dhaqaalihii wixii oo dhan uu ka joojiyay oo kala diriray dadaan waxba garanaynin oo waxba fahansaneen oo asagu gacanta ku haya oo asagu u magacaabay oo haday hadlaan uu bedelayo meesha geystay adeer marka reer gada iyo reer Jubbaland way kaceen way diyaar garoobeen waxaan rabnaa insha Allah inaan dhisana xildhibaanadaas la doorto kadib waxaan sameyn doonaa madaxweyne Jubbaland oo sharci ah oo liisla leeyahay oo dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ay iska dhaxarkaan xildhibaano reer Jubbaland oo la wada leeyahay dastuur la wada leeyahay calan la wada leeyahay intaas la rabaa in la sameeyo oo gobolka gada dadka isugu yimaadaan siyaasiyiinta qurbo joogta dhamaantood waa la hadalnay siyaasiyiinta maxaan ku yiraahdaa hore oo xilku ka dhacay oo reer Jubbaland ama reer federaalka oo dhan waa la hadalnay dadka saddexda gobol degoo dhan dhamaantood waa la hadalnay waxay u diyaarsiin inay is xukumaan inay is doortaan inay gobol dhigtaan inay isu yimaadaan meesha la isugu yimaadaan waxay noqon doontaa gobolka gada oo xalaal ah kulay Axmed Madoobe waa tagayna uu lahaa wad maqlayseen ayaan dhawad warku ku xanqarsaday wuxuu lahaa garbaari ciidamada joogo dhan waa ciidamada bariir alma watay karaan waqti hore wiil sida ayday waninku waxa ku fikiray hadda ciidamada dawladeeda jooga xataa aan lahayn ciidamada bariir ala gada jooga yuulay wanika madaxweynaha sheeganayo oo dhunsan waxa soo ka hadlaa asaga oo aan la haysanin oo wax xukuma gadal oo shacabka xataa u galihiin yu iimaan waa hadda maamulo maxaan ku asaga aan ku xirneen madax asaga aan ku xirneen shacab asaga aan ku xirneen ay joogaan inuu sinimaanin asna oo og yahay inuu duurka ka sheegto rabaa sida shabaabki hadii shabaabkuna la mid yahay anaga sidaan ognahay asaga inta la joogto anaga waxaan u naqaanaa inay shabaab yihiin inaysan maxaan ku ummad matalin inay xoog isku joogaan غيريada uma santiin intaas ayaan rabnay inaan sheegna waxa kale oo sameyn doonaa insha Allah guddiga doorashooyinka ugu qayb galaya gobolka gada afarta xibnood insha Allah taala waxaan rabnaa xarunta gobolka markaan tagnay inaan ku dhawaaqna waxaan u gudbin doonaa markaan qorno oo saxiixna dawladdan u gudbin doonaa xibnaha iyaga ah waxayna dooran doonaan xulitaanka baarlamaanka ay xuli doonaan si sax ah insha Allah taala u diyaarin doonaan waxa kale waa 12 xibnood sida aqyaa maxaan ku raadayay nolol sheegay saddex maxaan ku raadayay dawladda federaalka ay ka soo galiyaan dawladda magacaabaysa dhamaan waxaan leenahay siyaasiyiinta reer Jubbaland odayaasha dhaqanka reer Jubbaland gobasha gada waa fidsan tahay maamulkeedii iyo saraakiisheeda dhamaan waa idin sugayaan ka soo qayb gala gobashan salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh